dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay sababta ciidamada AMISOM loo geeyay magaalada Dhuusamareeb. ciidamadaasina waxa ay magaalada tageen saacadii hore ee saaka militariga qaybta 12aad ee ciidanka Soomaaliya oo soo dhaweeyay ayaa sheegay in ciidamada AMISOM ay kaalin ka qaadan doonaan sugidda amniga iyo la dagaalanka al-shabaab. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ka waramaya. magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug waxaa maanta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM gaar ahaan kuwa Djibouti oo ka baxay gobolka Hiiraan kuwaasi oo loogu talagalay inay sugaan goobaha lagu qabanayo shirka dib u heshiisiinta dadka deegaanada maamulka Galmudug iyo halka ay ka dhacayso doorashada maamulka Galmudug taasi oo la filayo inay dhawaan ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. ciidamadan ka socda AMISOM oo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay taliyaasha ciidamada dawladda qaybahooda kala duwan iyo mas'uuliyiinta dawladda. soo dhaweynta kadib waxaa warbaahinta la hadlay taliyaha qaybta 12aad ee ciidamada militariga Soomaaliya General Cabdicasiis Cabdullaahi Qooje kaasi oo ka warbixiyay ciidamada AMISOM oo maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. faraxsanahay inaan ka qayb qaadano soo dhaweyntan anagoo matalayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan qaybta 12aad aad baan ugu faraxsanahay. waxaan ognahay shaqooyinka ka soo qabteen ciidamada Hiil walaal Hiiraan iyo sidii ay u taageereen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo dadka shacabkaaba. annaguna intii oo kale aan rajaynayna inay nala qaban doonaan hadday tahay amniga gudaha gobolka iyo degmada shirka lagu qabanayo iyo hadday tahay amniga banaanka la dagaalanka shabaab laga xoreynayo degmooyinka ay haystaan. aad baan waxaan ku rajaynaynaa inaan shaqo badan insha Allah nala qaban doonaan. waxaan aad ugu soo dhaweynaynaa meeshaan deegaankan aan joogno hore u shaqeynay in ayaguna shaqada nala sii qabtaan haddii lahaydno. dhinaca kale taliyaha ciidamada AMISOM ee gaaray magaalada Dhuusamareeb oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay inay ka qayb qaadan doonaan sugidda amniga magaalada Dhuusamareeb iyo la dagaalanka al-shabaab. markuu tanimaad maahin in badan baan awood tagnay Dhuusamareeb laba goor iyo saddex goor waxaan muujin si fiican baan loo soo dhaweeyay imikana anta si fiican baan loo soo dhaweeyay dadka reer Galmudug iyo dadka reer Djibouti xiriir fiican baa ka dhaxeeya. heshiiskan waa heshiiskii Djibouti lagu soo saxay si loo implementin lahaa waan ka qayb gal doonaa wixina la weydiisto hadday tahay qabaqabada shirka iyo hadday tahay la shabaab dagaalka la shabaab diyaar baan u nahay. dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan la wareegtay amniga magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug kadib heshiis dhexmaray madaxda Al-Sunna iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. mahadsanid Farxaan. dhanka kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa waxay soo dhaweeyeen ciidamada ay dowladda Soomaaliya ay geysay magaalada Dhuusamareeb. warkan waxaa inoo faahfaahinaya Yoonis Duraan Cali. xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan kuwa ay deegaan doorashadoodu tahay magaalada Dhuusamareeb ayaa shir jiraayada Dhuusamareeb ku qabteen waxay soo dhaweeyeen ciidamo ka tirsan Midowga Afrika gaar ahaan kuwa Djibouti oo maanta tagay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. xildhibaanadan oo kala senator Jawaahir Axmed Cilmi iyo xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay fulisay codsigii guddiga dib u heshiisiinta ee ahaa adkeynta amniga iyo dadaalada looga shaqeynayay saaminaada bulshada iyo ka mardhalinta gogasha dib u heshiisiinta. xildhibaan Cabdixakiin iyo senator Jawaahir ayaa ciidamada Djibouti u sheegay inay taageersan yihiin lana shaqeyn doonaan. AMISOM ay timaado Dhuusamareeb waxaa sharaf noo ah inay ciidamada walaalaheena Hiil walaal ee reer Djibouti inay yimaadaan halkan. runtii waan soo dhaweynaynaa aad baa loogu faraxsan yahay imaanshihiina. waxaa timaadeen gurigiinii waxaa timaadeen deegaankiinii awalna waad joogteen haddana waad timaadeen magaalo cusub baa timaadeen. marka waan idinku soo dhaweynaynaa halkan waa meel laydinka jecel yahay waa meel laydinka soo dhaweynayo guud ahaan dalka Soomaaliya. waxaan runtii aad idinkaga mahad celinaynaa dhiiggiina iyo dheecaankiina inaad u horeysaan sidii dadka Soomaaliyeed amni ay u heli lahaayeen sidii dadka Soomaaliyeed nabad ay u heli lahaayeen sidii horumar u samayn lahaa dalkeena iyo dadkeena. waan idinkaga mahad celinaynaa waan idin haynaa abaalkaas waan idin hayn doonaa insha Allah. haddana waxaad timaadeen goob cusub iyo deegaan cusub oo laydinka sugaayay. waxaan leenahay reer Hiil walaal AMISOM ku soo dhawaada gobolka Galgaduud magaalo madaxdiisa isla markaasna ah magaalo madaxda dowlad goboleedka Galmudug.
meeshaan sidii xildhibaan kuu sheegay gudoomiyaha amni darro amisom loogu yeero ma ka jirinin laakiin waxa aan rabnaa inaad nala daadiisaan ama nala kobcisaan waxa waaye dib u heshiisiinta dib loogu samaynayo reer galmudug oo lagu khilaaf saarayo maamulkii galmudug iyo maxaa la yidhahdaa dib u doorashadoodii labaad ee reer galmudug inaad nagala qayb qaadatiin kaalintii muxuu ahaa amisom iyo kaalintii muxuu ahaa hiil walaal iyo dhammaan aad nagala qayb qaadatiin nala daadiisiin geedi socodkaas. magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa waxaa maanta tegay ciidamo badan oo ka tirsan midowga afrika gaar ahaan kuwa jabuuti oo ka howlgala gobolka hiiraan deegaano ka mid ah sidoo kale maalmihii u dambeeyey ayaa magaalada dhuusamareeb waxaa la geeyey ciidamo ka tirsan booliska soomaaliya gaar ahaan kuwa sida qaaska ah u tababaranaya haramcad oo laga qaaday muqdisho. dhuusamareeb ayaa lagu wadaa inuu ka furmo shirka dib u heshiisiinta beelaha dega deegaanada dowlad goboleedka galmudug horeyna dowladda uga cilaamisay inuu shirka ka furan yahay dhuusamareeb. banaanbax ballaaran oo looga soo horjeedo amarkii dowladda federaalk ah ee soomaaliya ay ku soo rogtay diyaaradaha aada magaalada kismaayo ayaa maanta magaaladaasi ka dhacay. sidoo kale dadka banaanbaxayay ayaa waxa ay diidanaayeen go-aankii wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya ay ku shaacisay inaanay marnaba aqoonsanaynin natiijooyinkii doorashooyinka ee ka soo baxay magaalada kismaayo. cabdimajiid cabaas aadan ayaa warkan kismaayo inooga soo diray. dibadbaxan ayaa ahaa mid shacabka reer kismaayo ay uga soo horjeedeen go'aankii dhowaan ka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya kaasi oo ku aadanaa in diyaaradaha ka baxa kismaayo ay soo maraan garoonka diyaaradaha ee aadan caddo ee magaalada muqdisho. shacabka ayaa waxa ay wateen boorar ay ku xardhan yihiin halkudhigyo kala duwan kuwaasi oo ay ka mid yihiin sida federaalka faham buu rabaa iyo sidoo kale go'doomin gobol gulmiya iyo halkudhigyo kale oo badan. waxaana dibadbaxan ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka. dhammaan dadkii shacabka iyo mas-uuliyiintii goobta ka hadlay ayaa dowladda federaalk ee soomaaliya waxa ay ugu baaqeen inay ilaaliso dastuurka dalka arrimaha dowlad goboleedyadana faragelinta ka dayso taa oo ay sheegeen in dalka aanan lagu celin burburkii colaadihii sokeeye ee dalkeenna soomaaliya soo maray. dhinaca kale dadkii dibadbaxa dhigayay ayaa waxay aad uga dhawaajiyeen in ay dowladda federaalk ee soomaaliya ay ku degdegtay go'aankii ahaa diyaaradaha ka baxa kismaayo inay soo maraan garoonka diyaaradaha ee aadan cadda ee magaalada muqdisho taasi oo ay ka dhawaajiyeen inay caqabad ku tahay shacabka isaga kala goosha degmooyinka xorta ah ee jubbaland. waxaa weeye meeshan waa isdooratay doorasho damoo lagu noqonayana ma jirto maamul damoo loo samaynayana ma leh. jubbaland hadday midowdo waad ogtihiin jubbaland wixii ka dhici jiray 30 sano 7 sano hadda la soo dhaafay bay nabad iyo midnimo heshay. hadday midaysan tahay buuraha waa jiiri kartaa cid wax u dhimi kartaa ma jirto. adiga xasan cali khayra ayaa burburiseen. jubbaland waa barwaaqo, jubbaland waa nabad, jubbaland kari maysaan, jubbaland horaa loogu daalay. war jubbaland waa Soomaali, waa Soomaali, waa shantii Soomaaliya, waa shantii Soomaaliya oo ku midaysan. war adeerow macaanow waanu ku ducaynaynaa madaxweynaha anagii qaran baa tahay soo dhawow. waa kalluunkii waa wax kasta diyaaradda $80 aan ku raacayo dhooble iga dejinaysa haddii la dhaho markay kismaayo ka duusho ha marto xamar meeqay noqon kartaa anigana $80 pocket money macal pocket money-gayga $100 aan ku talagalay. taas waxaan ka codsanayaa dowladda federaalka inay cunaqabateynta ay naga joojiso waayo bulshada rayidka oo kismaayo dad awoodin ay jiraan aniga camal ma awoodi. maxaa la jiray markaa baxdido dhooble wixii aad ku talagashay ku tashanaysay dhooble inaad tagtid haddii lagu dhax xamar aad tagtid oo ku noqotid tareesad maxay noqon kartaa dhib iyo waxaa noogu filan qalqado fara badan. marka dowladda federaalka waxaan ka codsaneen inay naga dayso dhibka ay nagu soo siyaadisay haddaan nahay shacabka rayidka oo ku barnaamijka qaasatan kismaayo ku nool. banaanbaxan ayaa ku soo aadaya xilli ay dhowaan dowladda federaalk ee soomaaliya ay ku dhawaaqday go'aan culus kaasi oo ku saabsanaa in diyaaradaha kismaayo tago ay maraan garoonka diyaaradaha ee aadan cadda ee magaalada muqdisho. cabdilmajiid cabaas aadan fantastic idaacadda kulmiye magaalada kismaayo. dowladda kenya ayaa amaro cusub oo dhanka socdaalka waxay ku soo rogtay dadka Soomaaliyeed ee taga dalkaasi Kenya. Libaan Nuur Xasan ayaa warkan inoo faahfaahinaya. xilli muwaadiniinta Soomaaliyeed ay dhibaatooyin weyn ku qabaan marista magaalada Wajeer oo lagu baaro isla markaana laga siiyo fiisaha dalku galka Kenya intooda haysata baasaboorka diblomaasiga ayaa dowladda Kenya waxa ay hadda shaacisay amaro cusub. Kenya ayaa ku dhawaaqday in guud ahaan la joojin doono fiisihii laga qaadan jiray magaalada Wajeer
taas beddelkeedana baaris oo keliya lagu samayn doona magaalada Wajeer oo ay ka degin doonaan diyaaradaha ka baxa Muqdisho. warqad ka soo baxday waaxda socdaalka ee dalka Kenya ayaa lagu cadeeyay in fiisaha dalku galka laga qaadan doono magaalada Nairobi gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta isla markaana baaritaano amni oo xoogan lagu marsiin doono muwaadiniinta Soomaaliyeed magaalada Wajeer. amarkani ayaa si gaar ah u saameyn doona dadka haysta baasaboorka diblomaasiga ee Soomaaliya. dadka Soomaaliyeed ee aadaya dalka Kenya ayaa la kulmaya cadaadis weyn iyo waqti lumis ka badan kii ay hore u mari jireen. war ka soo baxay bishii May dawladda Kenya ayaa lagu sheegay in dhammaan diyaaradaha ka duula Soomaaliya ay baaritaan ku mari doonaan magaalada Wajeer. sanad ka hor ayay ahayd markii dawladda Kenya ay qaaday xayiraadii diyaaradaha ka duula magaalada Muqdisho iyadoo ogolaatay in si toos ah ay uga duulaan magaalada Muqdisho kuna degaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi. dawladda Kenya ayaa xoojisay cadaadiska ay ku hayso Soomaaliya tan iyo markii uu xoogaystay muranka dhanka badda ah ee ka dhaxeeya labada dal. maanta waxa ay taariikhdu ku beegan tahay 1 bisha Seko sanadka 1441 waxaana 1441 sano laga joogaa markii Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee uu ka hijrooday magaalada Makka al-Mukarrama cadaadis uga imaanayay gaaladii Quraysh dartiis. warbixin arrintan ku saabsan waxa inoo diyaariyay wariyaha idaacadda kulmiye Cabdullaahi Maxamed Cali. waa 1 bisha Muharram sidoo kalena ah bilowga sanadka cusub ee hijriyada 1441. dunida islaamka oo idil ayay maanta u tahay maalin weyn maadaama jiritaanka taariikhda hijriyada ay tahay dhaxalka ummadda islaamka. jiritaanka taariikhda hijriyada ayaa laga soo bilaabaa maalintii uu suubanaheena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee u hijrooday magaalada Makka oo tulkiisa ay ku dhibeen kana baahin waayay diinta islaamka una hijrooday magaalada Makka. ummadda islaamka ayaa u asteesay taariikhda hijriyada in ay noqoto mid ay wax ku xisaabsadaan xilliga khilaafada islaamka uu madax ka ahaa amiirul mu'miniin Umar ibn al-Khattab ilaahay ka raali noqday. ujeedka Umar iyo asxaabtii kale ay taariikhdan weyn dibadda ugu taageen ayaa ahayd in la helo taariikh ay ummadda muslimiinta si gaar ah u leeyihiin waxna ku xisaabsadaan sida uu Sheekh Cabdulxayi Sheekh Aadan oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed uu sharaxayo. muslimiinta taariikhdooda ilaan taariikh hore ayaa soo socotay oo ummadihii hore laga soo gaaray oo يعني la soo tirsan jiray oo markaasna garab socotay taariikhda ay muslimiinta marka inay wax yar oo gaar ah ay leeyihiin oo ummad jirto oo taariikhdooda si u noqoto waxa la isku soo qaaday xilligaabaan marka ka soo artayna ama ka soo tirinaa markaas waxa la soo jeeday mesela xilligii nabi wixii lagu soo dejiyay miyaan ka dhignaa xilligii uu dhashay miyaan ka dhignaa markii warkii ugu dambeystii waxa u soo baxday xilliga oo hijradii ah oo nabigu markuu Makka ka tagay ee Madiina aaday xilligaas in marka laga bilaabo taariikhda oo yani iyada oo la xusaayo lana muujinayo ahmiyada ay arrintaas u leedahay iyo guusha la gaaray oo markii Madiina la isugu tagay wax yar ka bacdi yani si xoog leh muslimiintu u koreen oo ay awood u yeesheen. inkastoo saameynta dhalashada sanadka cusub ee hijriyada u saameyn badneen sida kan miilaadiga haddana inta badan arrintaasi ayaa waxaa loo asteeyaa hoos u dhac ku yimid ummadda muslimiinta ah iyo taariikhda miilaadiga oo maanta noqotay tan keli ah ay wax ku xisaabsadaan badi dadka dunida ku nool. inkastoo taariikh ahaan tirsiga miilaadiga laga soo bilaabo kadib dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam haddana Sheekh Cabdulxayi ayaa waxba ka jiraan ku tilmaamaya aragtida ay qabaan Soomaali badan oo ah in labada bil ay kala leeyihiin muslimiin iyo gaalo. wax la yiraahdo bisha gaalada iyo bisha muslimiinta ma jirto maxaa yeelay bisha Ilaahay baa iskale xigmada laga leeyahayna waa in wax lagu xisaabsado. asxaabta xilligeeda nabiga waxay weydiiyeen bishan oo qamariga ama habeenkii ah maxay marna ugu dhamaataa yani 30 marna ay ugu dhamaataa 29. saashaas markay soo jeediyeen sidii ay u rabeen in looga jawaabo oo ahayd مثلا markay xaaladu saas noqotana 29 bay noqotaa xaaladu markay saas noqotana 30 bay noqotaa oo ayaga dhacdo wax ayaga u muuqda inay u fahmaan ay u rabeen xaggaas baa lagama hadlayna waxa la yis'aluunaka can al-ahillati waxay ku weydiinayaan bishay ku weydiinayaan maxay marna 30 u noqotaa marna 29 lama dhihin marna saas u noqotaa marna saas xigmada laga leeyahay bisha dhalashadeeda baa looga jawaabo waxa la yiri qul hiya mawaqitu lin-nar dadka ayay u tahay waxay wax ku xisaabtaan waqitu lin-nas wal hajj hajka bilihiisa xilliga la aadi waa lagu taariikhaystaa marka meeshii ahayd maxay saan u noqotay maba looga jawaabin macnaheedu wax ayaga uga jirana ma jirto waa arrin Ilaahay uu leeyahay. hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga ayaa sheegtay in 2.6 ruux oo Soomaaliyeed ay u baahan yihiin in lala gaaro gargaar degdeg ah. Axmed Maxamed Ibraahim ayaan arrintan ka wareysanay. waa marka Axmed hay-adda barakacayaasha Soomaaliyeed maanta sanadguurida labaad
ayay u dabaaldegayeen kadib waxay soo bandhigeen in 2.6 milyan oo Soomaali ah ay qaxooti ku yihiin gudaha dalka Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale waxay sheegeen 800 oo kamid ah waa 800 oo kamid ah inay joogaan dalalka dariska laga xariyaha ku yaala sidoo kale waxay sheegeen 100 kamid ah in dalka si iskooda ugu soo laabteen waxay sheegeen in arrintaas loo baahan yahay si wadajir ah loo gacan istaago dadka barakacayaasha Soomaaliyeed wasiirka gargaarka Imaaraadka Suudiga waxa uu sheegay in dalka Kenya dowladda Soomaaliya ay ku shaabaday rabtay inay tahay dowlad argagaxiso ah balse dowladda Soomaaliya garab istaaga ayuu ku sheegay in maxay yiraahdaa qaraarkii qaramada midoobay la geeyay ku garab istaageen dowladda Soomaaliya sidoo kale madaxda dowladda Soomaaliya arrintaas ka dhigeen maadaama arrintaas ay tahay yiri in la baabi'inayo dowladda Soomaaliya oo dhan iyo wada qaxootigeeda iyo barakacayaasha gudaha Koonfurta axmed maxamed ibraahin ayuu ahaa wariyaha idaacadda kulmiye oo ka waramayay hay-adda barakacyaasha iyo qaxootiga Soomaaliyeed oo sheegtay in 2.6 milyan oo ruux oo dad Soomaaliyeed ay gargaar degdeg ah u baahan yihiin warka duhur ayaad dhageysanaysaan oo idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho idinkaga imaanaya markana warka dibadda ururka Taliban ayaa sheegay inay weerar xoog leh ku qaadeen magaalada Kunduz oo kamid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka Afghanistan weerarkan ayaa imaanaya xilli ay matalayaal ka kala socda dowladda Mareykanka iyo ururka Taliban ay wada hadal uga socdaan dalka Qatar afayeenka kooxda Taliban Sabiixullaahi Mujaahid ayaa sheegay in weerarkan ay ku qaadeen magaalada Kunduz ay ku qabsadeen dhismooyin muhiim ah oo ku yaalay gobolkaasi Taliban waxa ay saakay magaalada Kunduz ku soo weerareen dagaalamayaal dhowr jiho ka kala yimid waxaana hadda ku sugannahay gudaha magaalada inagoona qabsanay dhowr dhismo oo ay dowladdu leedahay ayuu sidoo kale warbaahinta u sheegay afayeenka kooxda Taliban wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Afghanistan ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in ugu yaraan 34 dagaalame oo ka tirsan Taliban ay ku dileen weerar dhinaca cirka ah oo ay ka geysteen dhowr mayl u jirta magaalada Kunduz ee weerarka ay ku hayaan ururka Taliban ugu dambeyntiina dibadbaxyo laga mamnuucay dalka Hong Kong ayaa dib u bilowday iyadoo booliiska Hong Kong ay mamnuuceen dibadbaxyada ismaamulka Hong Kong ayaa haddana wadooyinka waaweyn ee jasiiradda waxaa isugu soo baxay 100 ruux oo banaanbax dhigaya isku soo baxyada looga soo horjeedo faragelinta Shiinaha ee Hong Kong ayaa galay toddobaadkii 13aad oo xiriir ah dibadbaxa maanta oo Sabti ah ayaa ka bilowday bartamaha magaalada iyadoo dadka dibadbaxyada dhigaya ay markii dambe isku fidiyeen goobo muhiim ah sida garoonka diyaaradaha iyo sidoo kale goobaha booliisku ay maamulaan mudaharaadyada oo soo bilowday bishii Juun ayaa dadku waxa ay dalbanayaan in laga laabto sharci muran badan dhaliyay kaas oo ah in Shiinaha laga maxkamadeeyo dadka dambiyada ka gala gudaha Hong Kong jimcihii ayaa booliiska xabsiga dhigeen 3 kamid ah sharci dejiyaasha ismaamulka Hong Kong iyo dhowr qof oo kamid ah dimuqraadidoonka hogaamiyaha Hong Kong ayaa dibadbaxayaashaasi ka dalbaday in wada xaajood lagu dhameeyo waxay ka cabanayaan